dunida maanta horumarka qofka iyo kan bulshada labaduba waxay si dhow ugu xidhan yihiin aqoonta iyo xirfadaha ay leeyihiin dadku. Barashada xirfaduhu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka siinaya awood uu ku dhiso mustaqbalkiisa kuna horumariyo noloshiisa. Xirfaduhu waxay dadka siiyaan aqoon iyo karti ay ku shaqaystaan, ku abuuraan shaqo, isla markaana ku kobciyaan dhaqaalaha bulshada. Sidaas daraaddeed, dalal badan oo dunida ka mid ah waxay xoogga saaraan barashada xirfadaha si loo yareeyo shaqo la'aanta, loona kobciyo hal-abuurka bulshada. Iyadoo laga duulaya baahidaasi sii kordhaysa ee bulshadu u qabto barashada xirfadaha farsamada, waxaa la aasaasay Macadka Tababarada iyo Kobcinta Xirfadaha ee Jigjiga. Macadkan waxaa la aasaasay 1 Febraayo 2020 kadib daraasaad lagu ogaaday baahida dhabtay bulshadu u qabto barashada xirfadaha. Daraasaadkaasi oo waqti badan qaadan ayaa noqday daraasaad si guul loo hirgeliyo. Muddo kooban gudaheed, macadku wuxuu gaaray horumar muuqda, waxaana ka qalin jabiyay 2 dufcadood oo bartay xirfado kala duwan. Sidoo kale, macadku ma joojin dadaalka horumarinta waxbarashada xirfadaha. Wuxuu si joogto ah u raadiyaa fikrado cusub iyo farsamooyin casri ah oo lagu kobcinayo barashada xirfadaha. Ujeedadu waa in la abuuro jiil leh aqoon iyo xirfad, awoodna u leh inuu ka qayb qaato horumarka bulshada iyo kan dhaqaalaha. Macadku wuxuu bixiyaa xirfado kala duwan bixiyaa sida electriga, biyaha, tolmaha, qurxinta dumarka, basic computerka, food preparationka, decoration. Hadda imika waxaa noo qorshaysan haddii April ka noqdo daraasado socda ayaa waxaan ugu talagalay haddii April ka noqdo, maadaama hadda aanu suuqa ku jirno oo aan daraasadaanu samaynayno. Daraasadaas wixii aanu ku ogaano bulshadu inay baahi u qabto inaanu ku soo daro haddii April ka noqdo. Macadku xirfadahan uu bixiyay haddii aanu u eegno waxqabadkooda iyo qofku sida uu isbedel ugu samayn karo. Haddii aan soo qaato biyaha oo kale, biyaha ardaygu markii uu barto waxa u sahlanaanaysa biyogelintii oo dhan inuu ka shaqeeyo. Qofkii inuu sanitarygii gebigiisaba inuu sidiisa maadgaranaysaa u wada sameeyo ayaa u qabsoomaysa, maadaama macadku waxa uu bixiyo dhammaantii uu yahay practical. Marka practicalkoodii macadka gudihiisa ay ku dhamaystaanna aan cooperative practical aan samayno oo aan dibadda aan u saaro, qofkii waxaa u fududaata inteeda badan shaqadii biyaha inuu maadgaranaysaa qofkii uu noqdo qof biyihii maadgaranaysaa waxaan ku shaqadiisii oo dhan qaban kara. Marka qofku haddii uu mar biyaha shaqadiisa uu qaban karana, waxaa la ogyahay in uu naftiisa wax ka bedeli karo, qoyska wax ka bedeli karo, dhaqaale ka samayn karo, ta kale bulshadii waxaan ku yiri baahi tiri karo. Waxaa iyaduna jirta electric baa jira. Electriga sida aynu ognahayba dadkeenu way ku yirihiin dadka electriga bartay, laakiin hadda xirfadda electriga dadku aad bay u xiiseynayaan. Waa galaaska aan isdhihi karo markii ardaydu ay kuwan sii dhammaanayaanba kuwa kale oo degdeg ayaa jooga oo isdiiwaangelinaya oo raba inay bartaan electrigi. Marka annagu waxaan ku salaynayo waxa weeyaan, maadaama wax walba uu sidaa aan hore u soo sheegnay biyaha qaabka maadgaranaysaa waxaan ku yiri ardayda loo baro, baa electrigana waxaan ku yiri sidiisa loogu hagar baxaa looguna baraa. Marka ardaygu wuxuu maadaama halkan wixii maadgaranaysaa uu ku bartay ay wada practical ahayd, ayadana sidoo kale ayaan cooperative practical aan samaynaa. Saydadka ayaanu ardayda u dirnaa. Saydadkaas ayay practicalkii outreach ay ku soo qaataan, dabeetana saas ayay ku qalin jabiyaan. Marka kaana waxay u sahlanaanaysaa inuu qofkii uu qaadan karo guri contractigiisa ama guri la gelinayo contractigiisa inuu qaadan karo ayaan isagana ugu talagalay. Xirfaduhu run ahaantii waa laf-dhabarta bulshada ama shakhsiga. Qofku haddii uu xirfad barto meel kuma dayacmayo, meel kasta oo uu tago xirfadiisii uu iib geynayaa qofku. Xirfaduhu waxaa la dhihi karaa dunida dhan ee isbedeshay, isu bedelaysa, teknolojiyada isu bedelaysay, waxaa lagu bedelayaa waa xirfad weeyaan. Qof aanan xirfad aqoonin waa nolosha wuxuu kaga jiraa qaybta midoob kaga jira. Qofku hadduu xirfad leeyahay waa qof nolol waxaan ku shakhsiga samayn kara, tu qoyska samayn kara, tu samayn kara bulsho samayn kara. Marka inteeda badan bulshadu waxa ay baahi kaga bixi kartaa waxa weeyaan dhalinyarada oo intay xirfado bartaan la wareega shaqooyinka ay dadka ajnabiga inoo hayaan.
mid ka mid ah xirfadaha muhiimka ee tolidda dharka. Xirfadani maaha oo kaliya mid lagu sameeyo ama lagu hagaajiyo dharka, balse waa il dhaqaale iyo shaqo abuur. Qofka barta tolidda dharka wuxuu awood u yeelanayaa inuu naftiisa ku filnaado, isla markaana uu abuuro shaqo isaga iyo dadka kale. Sidoo kale waxay kobcisaa hal abuurka iyo farshaxanka nashqadaynta dharka. warka inaan barto waxaan u arkaa adigu inaan kulley nolosheeda aan ku dabaqi rabo, nolosheeda inaan rabo ku dhiso. markii hore iyo hadda wallaahi hadda farqi weyn baa noo ayaa dhexeeya. hadda waxaan nin aqoon laban ahay oo hadda aqoon buuxda loo hadda dhar walba toli karaa, shay walba markasta hadda lii dhibo waan toli karaa ama lii yimaado. markii hore dee surwaalka xataa sida loo iskeenay xataa ma garanay, waan leeyahay jiray dhalinyarada meelaha fadhida ama meelaha bulshada ku isticmaasha. waxaan kula talin lahaa inay xirfadaha bartaan, goobaha xirfadaha lagu bartay ay aadaan si ay aqoon ay korstaan. cunto karinta waa xirfad muhiim ah nolosha maalinlaha, door weyna ka qaadata. waxay qofka ka caawisaa diyaarinta cunto nadiif oo caafimaad leh. sidoo kale waxay noqon kartaa fursad shaqo iyo ganacsi, sida furashada maqaaxi ama bixinta adeegyada cunto diyaarinta. waxaan ay ardayda dhigataa cuntada. maanta dee wixii wax lagu qabsanayo waa xirfad maanta qofkii iskale maanta waxa ma waayo. anu ardayd baan ahay dee xirfadan bartaa. waxaanan rajaynayaa maanta markaan xirfadan dhameeyo inaan maxayda wax ku qabsado, aan dee waalidkii iyo dadkaba aan wax ugu taro. marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa ama ku bogaadinayaa inay xirfad bartaan, waayo xirfadu maanta waa dee gurigaagina ku anfacaysaa, dee hadday shaqo noqotana ku anfacaysaa. marka xirfadu waa wax lagama maarmaan ah, waa wax loo baahan yahay. dee macadkana macad aad u fiican weeyaan. marka gabdhi iyo wiilalba waxaan ku bogaadinayaa mar koobaad iyo mar labaadba inay wax xirfad bartaan. xirfadu waa lagama maarmaan. tiknoolajiyaddu maanta waxay noqotay qayb muhiima oo ka mid a nolosha. sidaas daraaddeed barashada basic combyutar waa xirfad muhiima. waxay qofka ka caawisaa inuu si fudud u isticmaalo kombiyuutarka, uu qoro dokumentiyo, una helo fursad shaqo oo badan. waxaan ka bartaa basic combyutarka iyo full bulkiyeerka ama qurxinta dumarka. ii sheeg hadafkaan u bartaa, waxyaalahaan u bartaa waxay tahay inaan beri nolosheeda ku anfaco oo aan ku shaqaysto. dabcan xirfad in la bartana aad bay muhiim u tahay oo noloshaada dambe ku anfacaysaa. naftaadana waad ku anfacaysaa, bulshada kaleetana waad ku anfacaysaa oo waad uga faa'iideyn kartaa. qurxinta dumarka, gaar ahaan weji dhiska iyo cilaansaarka, waa xirfad la xidhiidha bilicda iyo daryeelka muuqaalka. xirfaddani waxay qofka siinaysaa halabuur iyo fursad shaqo, gaar ahaan munaasabadaha sida aroosyada iyo xafladaha. waxaa bartaa qurxinta dumarka, sidoo kale xinaha, maykabka, timaan inaan ku daro waa rabaa insha allah. waxaa u doortay waxa weeyaan xirfad fudud aad ku shaqaysan karto, meel kasta aad tagto ama aad aado way ku anfacaysaa. waana shaqo wanaagsan oo muhiim ah qofku inuu wax barto, uu xirfad yeesho, wax soo saaro. way kala duwan yihiin, waayo maalinkii horta la ii sheegay muddo hore la ii sheegay, laakiin wax saas ma u arkayn. laakiin hadda markaan soo galay shaqo wanaagsan, xirfad wanaagsan. sidoo kale gabdhaha waxaan u sheegayaa inay wax bartaan, saaxiibadooda ama eheladooda ay keenaan macnihi soo jiitaan. waa xirfad aad u wanaagsan, fudud. ugu dambayn, barashada xirfaduhu waa jid muhiima oo lagu gaari karo horumar shaqsi iyo mid bulsho. waxay fure u yihiin shaqo abuur, hal abuur iyo horumar dhaqaale. sidaasi daraaddeed waxaa muhiima in dhallinyaradu ka faa'iidaystaan fursadaha barashada xirfadaha si ay u dhistaan mustaqbal wanaagsan.